السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سود هذا سوح وناكسن مول بتجوكتين ودقبلو كبلو فارح ولا الكيس معو كي كيرا بشير بالله مطانين حسن قرص صاحب كيس قرش ودرس كيس سعدية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سود هنا ذا وهذه سلام يا صياعة مول بتجوكتين. محمد جود مورنين سوح وناكسن خيارت شرفت له مول بتو عالم كجوكتان Somaliland maanta doorasha ka socoto insha Allah haduu leeyahay soo dhawaada waa duqbilow kablo faarax Suleymaan Umar alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat. aad baan idin salaamaya meel ba joogteen saaka doorashadii Somaliland ayaa socoto si wanaagsan ayay ku socotaa. Ilaahay khayr ka dhigo, Ilaahay dadka isku dirin. maanta wax kale ma soo gali waa duceynaya soo dhawaada fadlan si share gareeya idinko maasan best abian Somaliland waa wadankanaga weeyaan waa dhulkanaga hooyo weeye. Soomaali baa ku nool uma Soomaaliyeed baa degan ma sha Allah. xumaan uma qurno naceeb uma qurno cadaawadna uma qurno aadiya laakiin siyaasadda weyn Ismaaciil nasiiba ku salaamiya saaxiib wees waa soo dhawaada ubax nuur xirsi wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakaat. meel walba oo caalam ka joogtaan hada beedin salaamiya waa subax hore yaa rasaaq yaa fataax baan leenahay yaa rasaaq yaa fataax waa min subax. doorashadii way socotaa Somaliland ma sha Allah si habsami leh ayay ku socotaa aadiya insha Allah haduu la yiraahdo qolo walba warkeedu waa cad yahay. ana duqbilow ama goobsoor anagu waxaan aad u taageereynay Cabdiraxmaan Cirro. umada wanaaga jecel ee Soomaaliyeed oo dhan waxay aad u taageerayeen Cabdiraxmaan Cirro. sababaha ku taageernayna waa muwaadin Soomaaliyeed waa muwaadin Somalilander waa muwaadin magaranayay degan waa muwaadin islaami waa muwaadin muslime waa muwaadin reer Somaliland ma sha Allah. waxaynu aaminsanahay haddaan anagu Soomaali nahay una ololeyno siyaasadda geeska Afrika aad uga shaqeynaa Kenya, Ethiopia, Soomaaliya iyo Somaliland. ayaa jamhuuriyadda iskeeda ugu dhawaaqday bay tiraahdaa BBC moogta. anaguna waxaan dhahnaa dawladda Somaliland markaan xanaaqsanahayna waxaan dhahnaa maamulka Somaliland markay aad u sii xanaaqnana waxaan dhahnaa maamulka Hargeysa dhahnaa moogta aad marka intaas waa kaftan insha Allah haduu la yiraahdo soo yaaca soo dhawaada si shirgray insha Allah. marka anagu hadaan nahay reer koonfur anagu reer waqooyiga ma ayno reer Somaliland ma ayno laakiin ayagu waa nacaayaan waxay nagu dhahan wala weyn faqash yam iyo qadaad weyn waxyaabo noocaas bay nagu yiraahdaan moogta. anagu ma dhaheeno waa walaalaha anaga Soomaaliyeed insha Allah haduu la yiraahdo meel walba tii joogaan caafimaad iyo cimri dheer baan u rajaynaynaa. ilaahayna uma keeno dagaal sokeeyo ilaahayna uma keeno inay isku dhacaan ilaahayna ma keeno in doorashada la isku qabsado laakiin ordhaca hadda soo dhacaya ma sha Allah haduu ilaahay ayaga iskala saarsaaro anaga ma kala saarsaarno. saddexda xisbi dhowr qabiil bay u kala yeeraan laakiin anagu ugu yeerno qabiilkaasi baan nacabnaa aadna u diidna ma sha Allah. marka Soomaaliya aan u duceeyno walaalaha naga Soomaaliyeed inuu dagaal sokeeyo ilaahay ka dhaxrudan. hordhaca hadda soo baxayo hadda banaanka u soo baxayna waxa weeyaan Cabdiraxmaan Cirro inuu ka horeeyo tirada kasto internetka dhan shutdown laga dhigay. internetka Hargeysa iyo Somaliland oo dhan ba shutdown laga dhigay si macnaha aan khalkhal loo gelinin si markaasi aan baashu iskugu dhaxyaacin ayaa waxa la sameeyay TV-yada kaliya internetkeeda shaqeynayo iyo halayar oo qolooyin marka ayaga ma sha Allah dawladda internet access haysto. marka hadda sirta hooseen helayno macluumaadka nagu soo dhacay Cabdiraxmaan Cirro ayaa ku horeeyo insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa Cabdiraxmaan inuu soo baxo. anigu Hargeysa tagaya maalinkiisa loo doorto Soomaali badan oo reer koonfur insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo ayaguna waxay wada tagayaan Hargeyso. marka soo dhawaada hadal badan ma hayo Cabdiraxmaan Cirro waa guuleystay guusha dhinaciisa jirta waan u duceynayaa habeenii maalin baan u duceynayay maalmihii la soo dhaafo dhan baan u duceynay Soomaali oo dhan masaajidada dhan baa looga duceynayay ma sha Allah. aniguna maanta waan u duceeyay saaka niyadda iga jirta insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo waxaan rajaynayaa inuu ku guuleysto Cabdiraxmaan Cirro sababtoo Hargeysa tagi doona insha Allah haduu leeyahay magaala madaxda Somaliland baan tagi doona insha Allah. Viva Cirro doorashada hadda hordhaca soo baxayo waxa weeyaan Cirro iyo wadani xisbiga la yiraahdo ee koreey ayagu qabiilay sheegay anagu qabiil sheegmeeno Soomaaliba halka degan waxaan anagu u kololeynaa maalin walba ololeeyo qabiilka ha dhaco qabiilka 4.5 ka dhulka ha galo umada Soomaaliyeed wax u qabanayna soo baxo insha Allah haduu Ilaahay yiraahdo. shalaytu waa soo galay dhalinyar badan oo reew haaye
يا رج بدنو وحبرتي الرج مينيابوليس يا أوتاجن إلى دورشة سوماليا ويجلس كف كنا كقيب قاتن قبيل كإلا الزوليو عبد الرحمن عرو وحويان قبيل كسر جدا لكن كوا قبيل كنا النبي يجرو كوا قبيل مقرن ساي وشك شيء إنه أوتاجن وشك شيء يجرو كوا سكسر جدا صوبتوا لوada musharaxay kala taqabiilay ka dhawaajiyeen sida darteed bay Soomaaliya uga hortimid sida darteed baana looga hor yimid sida darteed baana u diidnay sida darteed baana macnaa cod iyo sharee Soomaaliland aysan u dooranin aad Abdurrahman Cirro guul ballan hordhaca hada arinta soo baxayso anaga soo gaarayso hada sirta hoose إن شاء الله لسلا دحمرية تلفون هذا لسكوا عيو عرّو أيات ترى ذا كوريو بول ستيشن هذا بول ستيشن هذا أنتوا ذا بدن وحاسر هو سكسو بحيسو هذه بعدين سلام يا سود بول ستيشن هذا لقوا عذيني وحاسي هو سكسو بحيسو حسب جو الدري إنه باش عرعرته كذا وقت أسرية ما شاء الله ما شاء الله سود هذا فضل سيشر قرية ذيكم ما سنملوا بتجوكتين قوشوا أنا جينا لجرتها قوشة وحي لجرتها ومدى الصوماليات بلجرتها قوشوا وحي لجرتها رئيس صومالي لان كقبيل كديدن بلجرتها ما شاء الله قوشوا وحي لجرتها صومالي ذا قبيل كنعيب بلجرتها قوشوا وحي لجرتها رئيس صومالي لان كقبيل كنعيب بلجرتها كوا قبيل يدقال كسوكيه مقرن سايه كان بيقرنيه قوشة اللي وجرتو صوبته مصبحي هدو صوبحو دقال بوحو كقاضي يا بلاني يا سومال لامبوس كدريا وانيكيري قروا لغو معناه قروا دول كدغيا لا سعانود بدول كدغيا عيرغاو دول كدغيا اوضل iyo magaran saaya boorman dul kadhigaya waa ninka dhahaya weeyaan ninkaasi Soomaali uma baahna insha Allah haduu ilaahay hanaga qabto Faisal Ali Warawana waa ninka awaariya ku dhahaya magaran saaya dhigax buur dhulkan dhigaya ee rabo Soomaali isku diro weeyaan ilaahay naguma soo saara Muusabixi iyo Faisal Ali Waraabe ilaahay waxaan ka baryeena 30 sano dagaal sokeeyo ku soo jirnay ilaahay waxaan ka baryaa 30 sano dagaal ku soo jirnay ilaahay inuu inoo keeno nin culume nin Soomaali aan isku dirin maamulkooda ha kala ahaado insha Allah haduu ilaahay maamulkooda ha kala ahaado macnaha booliskooda ha u kala duwanaado sharciyadooda ha u kala duwanaadaan laakiin hooyo Soomaaliyeed iyo wiil dambe oo Soomaaliyeed inuu san dhiman Muusabixi waa ninka rabo isaaq iyo majarteen inay isdilaan isaaq iyo daarood inay islaayaan isaaq iyo hawiye inay isdilaan isaaq iyo gadabiirsi inay isdilaan ninka rabo weeyaan ma doonayno mana rabno mana loo codeynayo mana soo baxay beesha caalamkana ma rabto daad baydii shaqay dhageyst beesha caalamka iyo international community Faisal Ali Waraabe iyo ninkii shuuciga ahaa magaranayay Muusabixi cidna ma rabtay aadii dhageyst Faisal Ali Waraabana dagaal qabiil buu bilaabaya soodintan magaranayay reserve rowen oo dagaal ka bilaaba laakiin Abdurrahman Cirro qabiilku doona ha ahaado waa nin reer Somaliland oo sax ah daas waayaan ku taageernay dhalinyartanada kacdo ka wado sababta ku taageerna waxa weeyaan muwaadin reer Somaliland ama Soomaaliyeed oo hooyo dambe iyo aabba dambe ana isdilin barabna ay aadi dhageysto anigu reer Somaliland mihi muwaadin Soomaaliyeed bana waxaan u kacdoon u sameeyeen u ololeeyay inta badan waxa weeye soo dhawaada fadlan si sheer gareeya si macnaha farxadani ay u gudubtaadiyaan xanta hadda igu soo dhacayso hadda message-ada ii imaanayo telefoonada aan wacay macnaha Faisal Ali Waraabe waxa weeyaan waa hooseeya Muusabixi wuu hooseeya Abdurrahman Cirro wuu sareeya wuu qoslaya mardowna waan qoslina waan farxina qof uu duqbilow u saadaaliyay oo luus gareeyo waa la waaye ha xanaaqina qolooyinka laga raayow ha dagaalamina qoranka laga raayow qabiilka ka daaya wadanka dhisma qabiil ka daaya wadanka dhisna dagaal sukayo uma rabno aadi dhageysta annagu qabiilku maana taageerin idinka qabiilka sheego annagu qabiilka ma sheegno waynu sheegi jirnay waynu ka carray Muusabixi hoos buu jiraa Faisal Ali Waraabe hoos buu jiraa taariikhdan iga qoro been ma waxa umada u soo bixi rabo nin qabiilka suulin doono insha Allah Somaliland aqoonsigeeda u raadiyo muddo kale tadarada
laakiin aadiyaad oday waashay oo shuuci oo qori wato oo ku dhahaya muxuu ahaa garawaan dhulka dhigaya oo ku dhahaya boormaan dhulka dhigaya oo ku dhahaya ceergaaban dhulka dhigaya oo ku dhahaya qabiilaan laynaya aadiyaad ma rabna dawaa ka soo horjeednaa muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta reer Somaliland ee walaalaha u nahay ee wada dhalannay ee xidid ku nahay waxa loo ololeynaya oo la garab taagan yahay oo maanta hooyooyinka curyaamada aabayaasha cid walba wanaagga jecel oo aan dhib rabin carruurtooda inay wax u bartaan rabaan Cabdiraxmaan Cirre ugu rudaya daadii dhageysto wayna soo bixi doonaa wuuna soo ku sarreeyaa hadda xanta soo bixayso tirada macnaha isuma dhow xataa aadii dhageysta tira isu dhaween yay ku kala badin doonaa tira aan isu dhaween sababtoo ummadda Soomaaliyeed geeska Afrika ku nool soo dhawaada fadlan sii share gareeyay masa sababtoo ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool qabiil way ka soo daashay aadii dhageysta shalayta waxaan halka ka soo daayay muwaadin Soomaaliyeed oo u taagan inuu macnaha duqa magaalada Kismaayo u qabto asoona qabiil uu sarrabin inuu ku soo istaago rabo as waxbarashadiisa iyo aqligiisa inuu ugu tartamo moogtaadiyaad shalo dhan bay soo wacayeen wuxuu leeyahay Kismaayo reer baa iska leh maxaa duqbilo warintan ugu kaambeen garanaysa maxaad u sameynaysa qabiil Kismaayo iska male Soomaali baa iska leh aadii dhageysto Somalilandna reer Somaliland baa iska leh muwaadiniin Soomaaliyeed aadii dhageysto هذه دقيقة سود وهذا فضلا سيشر قرية ذيكم ماسن عبد الرحمن عرو وين قرب استغنى عبد الرحمن عرو وانكي وقويقة اما السوماليلان اما جمهورية اسكاد اسكوكو دواقضي مدح بنانيدا نكي كسار لها قنمدا نكي كسار لها قاجدا نكي قبيلك كسار لها وين وذو جدا كل مية وعي كوهالليين كان بين كودو ننا صاحبنا هاي ووزير كان نقضي سوماليلان والرئي من يابلس اسلهان جرنا واهورتو عداني نكي إيرادان وذركي سيندا وحو كوهاللي كل مية ودن با قبيل أمنسان كل مية ودن أيها وحي أمنسيهن قبيل وحلا إيراد هذه دقيقة أننا وحاربنا نلقى سوماليلان يا دولة سوماليلان ما دام قبيل لبدن يتقايهين إنو حر نقضو كشفوه أغلق الجاهلية كبد بادو قبيل كوحلا إيراد عبد الرحمن عرو waxaan ku taageersanahay hadaan nahay Soomaali Maxamed waxa weeyaan afkiisa qabiil laga bahayo kambeekiisa qabiil laga bahayo cid ololeenaysa qabiil laga bahayo wuuna soo baxaya kanaxo nafta waa maanta ayaa la kala baxaya hadaa tiri ciida gale hadaa tiri Sacad Muuse hadaa tiri Habar Yoonis hadaa tiri Habar Jacle waxa weeyaan taasan ka taqaluushi rabnaa anaga هدانو نهاي تيم اوف ودري هدانو تاغيرنا تيم اوف ودري تاسا ربنا ان لغا تقلوصو وحينو ربنا ان سوماليلاند دل معناها قبيلك كم مدح بنان انو نقضو اذيات اذا كنا waxaad ku wadaan dagaal sokeeyo kulmiyow muxuu ahay ninkii kaleete Faysal Alwaraana dagaal sokeeyo ku wada umada Soomaaliyeed bal la isku diraya umada Soomaaliyeed barta degan bal rabeynaysan dabka kala qaadan waxaan u taageerayna wadani waxa weeyaan oo guusha u siinayno uu ku soo bixi doono qabiilka inuu ka tanasulo wadankaasi wadan nidaam la u noqdo wadan sharci ka shaqeeyo u noqdo oo sharciga sareeyo deeyaadii dhageysto qabiil down muusabixi wuxuu yiri garawaa la baabiiraya مجرتين من نقول لك يا ريب لنا دم حبض كلا دار يا أبو يري نك النوع عاسة جالس كافر كانوا مدح كان نقض ميان ربنا نك النوع عاسة ميان ربنا إنه كان نقضه Somaliland مدح ويني نك النوع عاسة ومضى الصوماليات إنه ربع بيربو أصوات في حيدنا من ديها أصوات في سنة ميان ربنا إنه مدح وينك كان نقضه Somaliland وما يد سود وهذا سيشير قريب ودني أنا ودني بانهاي والتيم اوف ودني ما توان قولا سرنا وحير بين نوغاري ساعة يربا كاري نتيجة حانتيد ويسو بحضي حانتي النتيجة ويسو بحضي ويسو قرتي من السوء حنباني ذي اللو ذاك يا هذه دقيس كل مية يعود وحيدتك الصوماليات وياريان قداد وي فقش قبيل دارود هوية رحوين وحنا عاسنا وياريان موقتي ودني وحا كنت على هذا وحوين وخيار ويدقين قبيل حتى هدايهين قبيل كودا كما صوري وهو سيا قبي وطايب موقته لكن وناقة يا فعنانتا يا عقلي وناكسن هيا نضيق موقته سودا وهذا فضلا وداني ما قولوا سنيو وداني ما صوبحيو عبد الرحمن عرو is the next president of Somaliland كوا حناقة
كوا حناقو قوريها قادننا مصبي قبيل كيسو قوريها قادننا فيصل على ورا رير كيسو قوري ما قادن كران مكتب ما شاء الله ما شاء الله سودو هذا إن شاء الله هدو إلى يرادو سودو هذا هذه ها رال نقطة هذه سودو هذا سيشر قرية إذكم ماسا مدح باي سوى عذي مكتب ودري بقول يسرب ودري هذه دقيست عبد الرحمن عرو is the next president of Somaliland already هردعي وصوبحي كل مية أود أساس تموكته وحسكود ده إنترنت كانوا دول كلا كلا موكته إلى دات كافك قبطان بيسكود ده موكته وش وش هذه هون سودان موك سلام يا ما شاء الله عبد الرحمن عرو is the next president of Somaliland ما شاء الله والدعية هالمرة وحدو صقرتان آمين كوا وراك جعلوا كوا روا قبيل كنا نسول إنه 4.5 فينا كتقلصنا أمد الصومالي الربطة سودا وهذا هالمرة وحي صقرتان next president of Somaliland عبد الرحمن عرو آمين يصقر وودعينا إن شاء الله آمين إلى كقول شيء آمين صقر آذيات آمين الله صقره الله دعاء ويشقينسا آمين the next president of Somaliland وعر إلهي كقول الشيء آمين إلهي مدحوينه سوماليلاند كدق آمين إلهي ومد الصوماليات بودعينسا آمين إلهي ومدحوينه سوماليلاند كدق آمين إلهي ومدحوينه سوماليلاند كدق آمين وقول سريا آمين دعاء الندى لجرته ومد الصومالي قلبي هذا لجره إن شاء الله وقول سريا مصبيحي دقال سكاي ونوضا وانيكا كدارانيا لبا عشايدا دورشدا كارتي دغيست ورئيس سوماليلاند inuu wiil naga dhinto ma rabno war hargeysoy inuu wiil ka dhinto ma rabtid war burcoy inuu wiil ka dhinto ma rabtid aadi dhageys war barbaroy inuu wiil ka dhinto ma rabtid aadi dhageysta insha Allah haduu ilaa wuu guuleystay Cabdiraxmaan Musabbixi wuxuu ku dhaaranayaa inuu garaba dhulka dhigi doono wuxuu ku dhaaranayaa uu mindiyaha u soo feesanaya inuu ummad Soomaaliyeed dagaal sokeeye dhex dhigo aadi dhageysta soo dhawaada si shargare insha Allah cadawga waa ka nixinaya cadawga ummadda Soomaaliyeed ee geeska Afrika ku nool ee raba dagaal sokeeye inay u harsadaan duqbilooba joogo ummadda Soomaaliyeed ba joogto oo qabiilka la dagaalamayso adduunkii ba ku rafaadnay aadi dhageysto hooyo reer Somaliland aba reer Somaliland aba Soomaaliyeed aba Jabuutiyaan aba NFD ka imaad aba kilka sanad ka imaad qaxootiga ku wadanaa qurbaha aadi dhageyst waxa noo galay waa qabiil weeyaan waxa naaca nagu sameeyay Musabbixi oo kale ta weeyaan iyo Faysal Cali Waraabe aadi dhageyst cirro waa nin salaada tukada weeyaan aadi dhageyst waa kala saarena madaxweyne cirro waa nin salaada tukado waa nin masaajidka ku tukado weeyaan aadi dhageyst qofka markuu salaada tukado ee Ilaahay uu ku xiran yahay dhiiga ummadda islaamka waa ka carram moogtahay aadi dhageyst عبد الرحمن عرو وان صلاة تكذا ويان هذا الكيغا سفع فهم امين ان شاء الله وقول سدنا مدحوينه عبد الرحمن عرو وان صلاة تكذا ويان هذه دقيس وان مساجد ككتو كذا ويان هذه دقيس وان مساجد كصلاة كتو كذا ويان ديق اسلامنا وكعر هذه دقيس وان قلبيسو نحريس كبوخدا ويان وان امد الصوماليه ذا كلا جعلين لكن سياسديسو غورتاي ويان هذه دقيس لكن وان صلاة تكذا ويان هذه دقيست عبد الرحمن عرو مدحوينها سوماليلاند وان صلاة تكذا ويان وان صلاة اسلام كتكذا صلاة لو ليهي واجب كتكذا ويان وان صلاة تكذا ويان هذه دقيست وان صلاة عرو صلاة تكذا هذه دقيست وان مساجد كتكذا ويان هذه دقيست هذا الكيغا كلا دحبح كو فسروا كلا دحبح عبد الرحمن عرو is the next president of Somaliland already دقبلوا وإذا لو ذاك معلومات كهذه دقيست Musabbixi وانك الربا مانتا ميدياها كشيغا عيلان عقداد دشي واحد صدن سنة 40 سنة كور laga soo gudbay mindiyaha u soo feesanaya kula garawaan baabiiraya hadi dhageyso garawe ayaan baabiiraya ninka ku dhahaya weeyaan hadi dhageysto waa qabyaaladiista weeyaan kuwa ku xeereysan u kaambeen gareeraya waa qabyaaladiistayaal weeyaan hadi dhageysto waa qabyaaladiistayaal hadi dhageysto
ummadda Soomaaliyeed qabiil way ka soo daashay isdil way ka soo daashay isdhac way ka soo daashay Muuse Biixi Puntland buu rabaa inuu dagaal ku qaado aad dhageysto Puntland oo dhisan oo taangiye haysato oo diyaarada ku dagaalamayso oo ma garanaysaa ee Somaliland aan waxba ka hub yareen aad dhageysto dagaalka sokeeye ee Muuse Biixi uu rabaan idin sheegay aad dhageysto Puntland oo diyaarada haysato oo ma garanaysaa hubka ugu casriyaysan ee Soomaaliya meelna laga haysato rabaa inuu dagaal ku qaado aad dhageysto halkaasi waxa ka qarxayo dagaal sokeeye kii ugu xumaaba ka qarxaya aad dhageysto Muuse Biixi wuxuu yiri waxaan dagaal ku qaadayaa Garawaan dagaal ku qaadayaa uu yiri aad dhageysto Garawana waa meesha kaliye ee Soomaaliya ka dhisan weeyaan waa meesha kaliye ee diyaarada soo gadata weeyaan ma rabna wiil dambe oo Soomaaliyeed inuu naga dhinto ma rabna aad dhageysto ma rabna ummad Soomaaliyeed oo dambe inay dhimato ma rabno ummadana wanaag ku noolaano businesska naga isdhaxgalo shacabka Soomaaliyeed wada shaqeystaan ummadda Soomaaliyeed haday rabaan maamuladooda ha u kala duwanaadaan haday rabaan waxaynu rabnaa nabad iyo barwaaqo iyo baraara inaan ku noolaanaan rabnaa aad dhageyso Muuse Biixi wuxuu isku dirayaa Somaliland iyo Puntland buu isku dirayaa aad dhageysto waan idin saadaalinayaa waxa ka dhici karan idin sheegay dhageysto Garawe iyo maamulka Puntland waa maamulka kaliya Soomaaliya ama koonfurta Soomaaliya diyaarado soo gatay weeyaan aad dhageysto waa maamulka kaliya ee markabyo hub u soo dagaanay aad dhageysto waad maqasheen idaacadaha ka daawateen aad dhageysto waa maamulka kaliya Imaaraad iyo Carab iyo meel kasta ee ciidamo u tababarayeen aad dhageysto sirbaan idin siinaya waxba idin qarin maayo aad dhageysto markuu Muuse Biixi uu ku dhaaranayo waxaan dilayaa aad dhageysto waxaan baabiinayaa Garawe uu leeyahay waxa soo socda si saadaalinaya aad dhageysto ma rabna Hargeysa Garawe inay isdilaan ma rabna Hargeysa Garawe inay isku dhacaan ma rabna Puntland iyo Somaliland isku dhacaan nabad baan rabnaa cirna waa nabadoon ma rabna in diyaarado la soo adeegsado aad dhageysto ma rabna in Puntland diyaaradaheeda soo kiciso ee wiilal Soomaaliyeed naga dilaan ma rabno in Puntland hubka casriga ee diyaaradaha daroonka ku dagaalamayso inay intay soo qaadato nala wiilal Soomaaliyeed oo dambana laga dila ma rabna aad dhageysto waxaynu rabnaa waxa weeyaan nabad inaan ku noolaan qabiil inaan ka taqalusno qabiil inuu baabaan rabnaa dil ma rabno dhac ma rabno barakicina ma rabno aad dhageysto kulmiya down Muuse Biixi dagaal buu ololeenaya ma rabno xanta hadda soo bixayso markaad dhageysto xanta hadda soo bixis the next president of Somaliland waa Cabdiraxmaan Cirro weeyaan aad dhageysto Faysal Ali Waraabe hadduu soo baxo wuxuu rabaa inuu dagaal ku qaado dhagax buur iyo awaaru rabaa inuu dagaal ku qaado aad dhageysto waa nin ciilan ummadda hadda abti adeerka isku ee isu dhashay ee wada nool en dibka ka dhaxayn ayuu rabaa inuu dagaal ku qaado waa nin ciilan aad dhageysto Muuse Biixina waa nin ciilan oo rabo beelaha dega Somaliland iyo Somaliland ta dhisantay ee ma sha Allah warada salaamiya the next president of Somaliland waa Cirro hala sii sheer gareeyo dagaal ma rabno Puntland iyo Somaliland is dagaal ma rabno in diyaarada la soo adeegsado maamuladan gamuuray ee ma garanaysaa ee dhistay dhulkoodii dhistay ee diyaaradaha sida hadda Puntland oo kala diyaaradaha soo gadatay ee hub casriga haysato ee ma garanaysaa ee dagaalka noocaas anigu ma soo dhaweynayo mana rabno madaxweynaha taageersanay waa nabadoonka ummadda Soomaaliyeed. Wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.